nabad saaxiibayaal waa mar kale iyo wehelka wariyaha tababarka saxaafadda. qaybtan waa qaybtii 9aad waxaynu ku soo qaadanaynaa farqiga u dhaxeeya qoridda wararka raadiyaha, telefishinka iyo waliba wargeysyada iyo talooyin muhiim ah oo ku saabsan warqoridda. luqadda lagu qoro wararka raadiyaha iyo telefishinka way ka duwan tahay midda lagu qoro wargeysyada. marka aad warbaahinta raadiyaha iyo telefishinkaba war u qorayso waxaad la macaamilaysaa indhaha iyo dhagaha oo wada socda, kuwaasi oo haysta fursad aad u yar in warkii ay maqleen ay dib ugu soo ceshtaan. qaabka loo qoraya marka warka warbaahinta la dhageysto ama la daawado waa mid wadata taxadarkeeda, maadaama dadka aad la macaamilaysid aysan haysan fursado badan oo kuwa joornaalka la mid ah. joornaaladuna waxay isticmaalaan erayo aad moodid inay ka adag yihiin kuwa telefishinka iyo raadiyaha. warka lagu qoray joornaal marka kaba soo qaad oo si caadi u muuqday ayaa haddana marka loo isticmaalayo telefishin iyo raadiyo uu noqon karaa mid in la fahmo ay adag tahay. fikradda ka dambaysa warqoridda ayaa sideedaba ah in lasoo koobo qaabka wax loo qorayo. haddana marka ay tahay raadiyaha iyo telefishinka taxadarkaasi lagu siiyey waa kasii xeel dheer yahay. wargeysyadu marka ay qoraalada samaynayaan waxay isticmaalaan erayo soo jiidasho leh, ama isla markaas si kale haddii aynu u dhahnaba xoogaa adag oo fahankooda uusan soo degdegayn. laakiin taasi kama shaqayso dhinaca warbaahinta raadiyaha iyo telefishinka marka qoraalka warkooda loo samaynayo. haddaba talooyinkan aan sheegi doono ayaa waxay muhiim u yihiin oo lafdhabar u yihiin marka aad samaynayso ama aad qorayso warka, ama raadiyo u qor, telefishin u qor, ama se wargeys u qor. u qor warkaaga in la fahmo, ha u qorin in loo bogo oo lala dhaco. u qor dhegaystayaashaada, ha u qorin naftaada. sidaas marka haddaad samaysid, dhegaystayaashaadu ama daawadayaashaadu warkaaga waa xiiseynayaan. markaad xigashooyin samaynaysid sida hadal madaxweyne yidhi dheh haddii aadba wax ku qoraysid joornaal sida tan: waxaan ku baaqayaa dhowridda xuquuqda carruurta, waxaa yidhi madaxweynaha dalka, halkii aad dhihi lahayd sida uu ku nuuxnuuxsaday, sida uu carabaabay, ama sida uu ku adkaystay ama uu adkeeyey. si toosa u isticmaal ereyga sida uu yidhi, maxaa yeelay waa ereyga ugu fudud ee loo isticmaalo xigashooyinka. iska ilaali inaad warkaaga ku darto ereyada adkaynta ah. ha dhihin webigan ayaa si aad iyo aada u fatahay, shilkan gaari ayaa ahaa mid aad u naxdin leh, cayaartan waxaa ka soo qayb galay, ama cayaar ka dhacday magaalo hebel waxaa ka soo qayb galay daawadayaal tiradooda lala yaabay. haddii cayaar dhacday keliya sheeg ka soo qaybgalayaasha. haddii wax dhaceen keliya sheeg siday wax u dhaceen. haddii webi fataho inta baaxadda sheeg, ha ku darin waxyaabaha adkaynta ah. magacyada dadka, magaalooyinka, xayawaanka, goobaha, dhammaan xarfaha koowaad ee ay ka bilowdaan waa inay weyn yihiin, amase uu xaraf weyn ka bilowdo. hikaada ama isbeelinka aad uga taxadar. magac si khaldan ama erey si khaldan loo qoray waa dhibaato. faqrooyinka gaagaaban waxay akhristayaasha ama dhegaystayaasha ka dhigaan kuwa kula soconaya. warku wuxuu u baahan yahay faqrooyin ama baragraphs yaryar. halkii faqro ama halkii baragraph ka dhig 60 erey ama kaba sii yarba. erey markaan leeyahay kama wada xaraf. matalaba xuquuq haddii aan ku dhawaaqo waa erey, waa hal erey, halka isla xuquuq haddii aan ku dhawaaqo ay tahay 6 xaraf. faqro walba ama baragraph walba oo warka ku jira fikrad gaara uga hadal. ereyada aad u isticmaalayso dadka xubnaha la ama maskax ahaan wax qaba ha ugu yeerin waxyaabaha suuqa looga yeero. ogow haddii aad tahay saxafi
dadka adiga ayaa hagaya ee ha u horseedin nacayb ama naynaas bixin. fududee fikradaha adag ee warkaaga. baaritaan ku samee oo iska hubi xogta aad sheegayso. ha isticmaalin ereyo la soo gaagaabiyey oo dadka ku adag inay fahmaan. ha bixin amar oo ha dhihin idhegaysta ama ila socda iyo kuwa la midka ah. ha isticmaalin ereyada ay ka mid yihiin sidii la filayeyba, sidaad la socotaanba iyo kuwa la midka ah. maxaa yeelay dadku lama socdaan. maxaa yeelay waxaad sheegaysid waa war hadda cusub oo soo dhacay. markaa ha u qaadan dadku in ay warkaaga qayb ka mid ah horay ula socdaan. ha isticmaalin ereyada ay ka mid yihiin war farxad leh ayaa waxa uu sheegaya, war naxdin leh, war xiise leh iyo kuwa la midka. u daa dadka inay go-aan ka gaaraan waxa xiisaha leh iyo waxa naxdinta leh. ha u qorin warka qaab sheeko ah sida waaba waxaa jira iyo waxa la mida. oraahda ugu horreysa ha ku bilaabin shalay ama daraad waxa dhacay. shalay waxaa lagu tilmaamaa sideedaba inay hordhac u tahay war duqoobay. ha ku bilaabin qoraalkaaga ereyada ay ka mid yihiin run ahaantii, dhab ahaantii ama sida muuqata. isi sax mar walba qoraalkaaga, warkana iska sax si dabacsanna wax u qor. ha quursanin dhegaystayaashaada ama akhristayaashaada. iska ilaali ereyada isxariifintu ku jirto. telefishinka iyo raadiyaha waa saaxiibka luqad dabacsan. ka taxadar isticmaalka erey marka lagu dhawaaqo laba macno samaynaya. maxaa yeelay taasi waxa ay wareerin kartaa dhegaystayaashaada ama daawadayaashaada ama akhristayaashaadaba. waa tahay waad ku mahadsan tihiin la socoshada barnaamijkan tababarka saxaafadda wehelka wariyaha. anigoo ah cabdulqaadir cabdullaahi cusmaan waxaan idin leeyahay nabadgelyo.